وين بلونا طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صباح وناكسن كل جيمبا وأرنتي عادة إنه هاي أنو مررك كل با أي شقة إنه لسه قد بوناتو أنو بحجري أو إنه يكور قليله ما أنت oo ay maxay aanu bixi doono goboladii kaar qaybintina bilaamayso in badan baad sugayseen dadweyne shacab iyo dawlad iyo xisbiyaba in aynu gudagalno hawsheeni masiirka qaranka ahayd kamid ahayd doorashada wayna ka soo dhameynay diiwaangelintii doorashadii waxa ka horeynayay kaar qaybintii waa tii dhacday abaara ina haysteen ilaahay marka hore subxaanahu wa tacaala raxmaadkiisii meelaynu ka maqlaynaa inuu helay ilaahay inuu maxay raxmaadka inoo maasheeyo kuna dhameeyo arigoo dhan oo raxmaadka ilaahayna siiyan horta ilaahay baryeena daruurtuna maanta waa wanaagsan tahay waa xaruntii komishanka qaranka oo komishankii qaranku u kala baxayo sidanu jadwalka u dhignay labadii gobol ee ugu horeeyay ee ahaa gobolka Awdal iyo gobolka Saaxil iyo 12 degmo oo ah gobolka Sanaag oo ah 12 goobood oo ah xeebaha hore waana ka idinku sheegnay xeebaha waxaan u soo hormarinay cimilada daraadeed oo ah labadan gobol ee ugu horeysiinay labada gobol waxay leeyihiin xeeb dheer oo goobihii ku teedsan yihiin waxaanaynu maraynaa waa April maadaama aynu April marayno wixii ka dambeeya kuleylkii baa la gelayaa Ramadaan baa la gelayaa Ramadaan wixii ka dambeeyana waa July iyo August iyo September oo waqtiga kuleylka xeebaha marka inaynu dadkeena aynu halkaa u naxno oo aynu u hormarino iyaga si ay iyagu gaararkii ugu hor qaataan gaararku waxay ka bilaabayaan oo ka bilaabi doonaa labada gobol caasimadahooda inuu ka bilaabi doonaa 27 bisha oo ah bishan aynu ku jirnay April inaynu markaa ka iclaamino in ay bilaabanayso kaar qaybintii 29 oo bishan April ah 28 kana in loo kala baxayo agabkii iyo shaqaalihii iyo gaadiidkii u kala bixi doonaan goobahay ka tirsan yihiin labada gobol iyo 12 goobood ee xeebaha Sanaaga waxaan halka ku daraynaa oo aanu maxayday iyaguna raaci doona guddiga farsamo xisbiyada oo iyagana shirkoodii ugu dambeeyay iyo qabanqaabadoodii ugu dambeeyay saaka yeelanay iyaguna diyaar u yihiin inay raacaan oo baxaan oo ay goobjoog u noqdaan ama wakiilo u noqdaan xisbiyada qaranka waxaanu haddaba halkaana ka faa'iideysanaynaa u sheegaynaa dadweynaha labada gobol gaar ahaaneed guud ahaanna dadweynaha ama shacabweynaha Somaliland in kaar qaybintii ay bilaamayso 29 kana bilaamayso labada gobol waa in kaarkii la qaataa waa in kaarkii qof kasto waraaqdii ama shahaadadii la siiyay waqtigii diiwaangelinta uu la yimaada goobtii uu iska diiwaangeliyay ama goobtii markii dheeriga uu isagu codsaday inuu iska diiwaangelin doono qortay waa in la yimaadaan waqtiga ka faa'iideystaan komishanaradu waxay u kala bixi doonaan oo maanta u kala baxaynaa safarkaygu ugu dambeeyay uu noqon doonaa labada gobol loogu baxayo kuna sugnaan doonaan goboladaas saddex komishanarna waxay u baxayaan bari oo ah Saaxil afar komishanarna waxaan u bixi doonaa galbeedka oo ah Boorame halkaas oo ku sugnaan doono ilaa iyo inta ay dhamaanayso kaar qaybinta maalinta ugu dambaysa ee aanu kaarka ku qaybinayno labada gobol waxa xigi doona Ramadaanta waxa ku sii xigi doona labada gobol ee kale oo bacda Ramadaan noqon doona oo Maroodi Jeexo inuu joogno
iyo togdheer ayaa ku xigi doona labada gobol waxaana ugu dambeyn doona sool iyo sanaag oo sanaag 12 goobood laga reebi doono waxaanu fursadan uga faa'iideysanaynaa haddaan nahay komishinkii qaranka inaanu xisbiyada ku boorino inay waajibaadkooda qaran qaataan maaha olole doorashadeed maaha waa olole kaar qaadasho oo ah olole qaran way ka sarreysaa olole xisbi waxaanu ka codsanaynaa inay kuna ilaaliyaan dadweynahooda iyo taageerayaashoodaba anshaxa kaar qaadashada oo la ilaaliyo oo aan la gobolayn oo aan la qabiileyn ay noqoto mid heer qaran ah taasaanu ka codsanaynaa saddexda xisbi qaran dawladda waxaanu ka codsanaynaa wixii taageero aan uga baahano inay iyaguna nala garab taagnaadaan waxaan kusoo gabagabeynayaa mahadnaq aan u mahadnaqayo bahdani hortaagan waariya habeen mar allaala markaan u baahano diyaar noo ah noo timaada naga qaada warkaanu hayno u gudbisa dadweynaha hadday gudaha noqonayso waddanka iyo hadday caalamka noqonayso aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaa mahadda mid la mida aanu siinaynaa saddexda xisbi qaran oo haddaanay nagu kalsoonayn haddaanay shaqadayada ogeyn siday u socoto haddaanaynu qayb naga mida aanay ahayn aananu halkan soo gaadhsiineen shaqada qaranka aan u hayno ee aad noo igmateen taasoo aanu jecelnahay in dadweyne shicib iyo dowladba lagu ixtiraamo lagu qadariyo commissionku inuu shaqadiisa u madax bannaanaado oo uu shaqadiisa siduu u wado xisbiyada iyo stakeholderska ama qaybaha aanu la shaqaynaa way la socdaan in dagaaluhu ka daayo in la jaha wareeriyo ama la jaha habaabiyo geedi socodka doorashadan oo ah inagu soo socota mid ka adag ama aynu uga baahi badan nahay doorashooyinkii hore sababo badan daraaddood iyadoo aad ogtihiin in caalamkii dubudhigidii aynu dib u dhigdhigaynay ay ka taagan yihiin marka waa inaynu inagoo kamcays haysanaa inagoo ujeeddo keliya tan leh aynu ku galno doorashadan si aynu sumcaddii caalamkana u soo jiidsano inakuna aaminaadeennii iyo wanaageennii dib u soo celino annaga commission ahaan waxaa naga go-an inaanu shaqadaad noo igmateen nagu ixtiraamtaan annaguna aanu idinku wadno sidaas waxaan halkan u mahadnaqaynaa dawladdu gacanta ka geysato xagga dhaqaalaha markaan u baahano waxaanu kaloo u mahadnaqaynaa international community-ga ama hay-adaha caalamiga ah ama qaadhaanbixiyaasha oo iyaguna diiwaangelintii qayb weyn ka qaatay hadday tahay EU-da hadday tahay ingiriiska iyo qolada imaka u diyaarkaa inay ka qayb qaadato oo USAID-ku ka mid yihiin iyagana waanu mahadnaqaynaa guud ahaan intaas umaan doonaynaa inaanu idinla wadaagno